mar walba nin bulshada nolosheeda ka qayb qaata ayuu maxamed ibraahim ahaa marra ma ahayn nin nolol shakhsiya maxamed ku magacaaban marka erayadu ay noqdaan daawo marka suugaantu ay noqoto halgan waxaa meeshaasi ka dhashay magacan leeloobi karin waa hadraawi codkii dadka dareenkii ummadda iyo qalbigii suugaanta Soomaaliyeed muddo dheer ayuu waqtigiisa naftiisa iyo juhdi badan u geliyay si uu ummadda Soomaaliyeed ugu adeegi lahaa xanuuniye ayuu ahaa wuxuu ahaa ruux ay dhammaan da'yarta markaas soo kacaysa iyo ummadduba ay hiigsan jirtay oo role model u ahaa erayadiisu waxay ahaayeen iftiin gabayadiisuna waxay ahaayeen hageen waddadii runta iyo rajooyinka أبا محمد إبراهيم مرسمي ولو يقان هدرابي وحول شيء مقالة برعو سنة كيكو سغال بقول لافرتني سدحدي برعو مقالو دقاني هالابور له هالكاس أيونكو بربارة يروح ذا قبيق الصوماليات isagoo yar ayuu bilaabay in erayadu la ciyaaro halka carruurta kale ay ciyaarayeen kubaddu hadraawi ma ahayn oo keliya abwaan wuxuu ahaa halgamaa fikir in aaminsan in eraygu badbaadin karo dadkiisa gabayadiisa sida siinley aqoon la'aan iyo dad huwan waxay ahaayeen kuwa laabta ummadda taabanaya marka uu hadlayo dadku waa ay maqli jireen laakiin marka uu gabayo dadku waa ay dareemi jireen hadraawi wuxuu u bareeray runta in aan qof waliba jeclan in la maqlo erayadiisa qaar ayaa sababay in la xiro laakiin xabsigu kama xirin maskaxdiisa wuxuu halkaasi ku bartay in xurriyaddu aysan ahayn mayn ee ay tahay dareen ku jira gudaha qofka wuxuu ahaa eray nool xitaa markuu xiran yahay markii uu dibadda u baxay hadraawi wuxuu noqday cod mideeya Soomaalida dunida dacaladeeda oo idil فلان هذا كوسينا يا هذا سويالك تاريخ دو إذا سال جورينه متيدا سراي هذا سدر كوجو قرياي هذا سراي هذا عرض سوبري هذا سمدي رشيد يلو يويلي سادو يستولعي هايو فينتيجي هبلاكيسك حلو يرى شكسبيركي Soomaaliya laakiin isagu wuxuu ahaa hadraawi abaan u gaar ah erayadiisa iyo ruuxdiisa suugaantiisu waxay ahayd muraayad وقف اللي بإسكو أركو سوء فهم عدو يهاي يهالكي وكيمت سنة كيلو لبي لباتن افتينكي وينائي سوغانتي ونغتي لكن هدراوي مريما صوبتو إريدي سوغلي واكو النول كويدي سنة والا أخريا kiisana waa la maqlaa xikmadiisana weli waa ku hagaya jiilalka cusub waxa uu yiri qofka ma noolaado nolol la'aan balse nolol micno leh baa noolaada hadraawi wuxuu ahaa codkii dadka maskaxdii ummadda iyo ruuxdii suugaanta wuxuuna baray in eraygu daaweeyo in gabaygu mideeyo iyo in runta aysan weligeed dhiman allah u naxariisto waa maxamed ibraahim marsame